asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalaha meel walba aad joogtiin soo dhowaada waxaa ku soo dhawaatiin janalka somfintech iyo walaalkiin shakuur cabdalla maanta oo isniin ah bisha 17keeda 2023 sidaad u jeediin suuqa maanta oo isniin ah wuxuuna tusayaa websiteka crypto purple in suuqa inta ugu badan konyada ay cagaar yihiin iyo profit laga sameeyey maanta btc wax yar ka horaan arkaya dhaqaaq fiican uu sameeyey almost 2% konyada kalena altcoinka waxaan u jeedaa matic iyo mina oo ayakana sameeyeen almost 8% iyo kuwo kaloo badan oo meeshaan u jeedo profit sameeyey wax badanaan ii wadaa ila socdo arrimaha aadka xiisaha u badnaa ee wiigan hadda lasoo dhaafay waxaa ka mid ahaa blackrock madaxweynaha blackrock ama CEO ninka la yiraahdo Larry Fink asagoo live TV-ga u fadhiyo la wareysanayo wuxuu yiri Bitcoin waa international asset. Bitcoin waa international asset. Odagan iyo brokerada waaweyn ee Mareykanka waxay riixayaan in ay ayaka gacan haynta ku soo dhigaan kala soo wareegaan Chinese-kan exchange-yadan Chinese-ka sida Binance. Marka bal aan dhageysano hadalkiisa markuu live ka dhacayay Bitcoin is international asset. By the way, BlackRock waxay diyaarinayaan waxa loo yaqaano Bitcoin ETF. Marka waxyaalo badanaa ka dhiman mar bay gudbiyeen faylkii waa lagu soo celiyey marka waxaan sugaynaa mar kale haddana inay maxaa la dhahaa dib u soo celiyaan oo ay fiiriyaan marka odayga wuxuu hadalkiisa aan dhegaysano valuation of your currency, whatever country you're in. And also, I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Let's be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And so it can represent an asset that people can play as an alternative. I would call the foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement because you believe tomorrow is better than today. Tomorrow is better than today. Waxay ka qurux badan tahay maantay sidaas darteed baan waxa waaye investment hadda u sameynayna iyo maalgelin ku saabsan dadka ku dhiirigelinaya dad badan baa maxaa la dhahaa ii sheeg ninkan gacanta ku haya lacag iyo dad ninkan gacanta ku haya marka wuxuu dhiirigelinayaa dadkaasuu dhiirigelinaya wuxuu leeyahay Bitcoin is the one. Bitcoin waa tii aan muddo raadinaynay ee bahashan waxaa waayey aan maalgashan badanaa maalgashiga ninkan iyo kambanigiisa iyo dadku lacagta u hayo waa real estate maxaa la dhahaa ii sheeg stock marketka boundska meelahaas dollar maraykanka iyo lacagaha kale ee qalaadka laakiin haddartaan waxaa u malaysaa si xawli in uu soo gelayo Bitcoin iyo afaarahani cryptocurrency marka institutionka way weynaayaan ee Mareykanka waxay rabaan inay soo galaan maxaa la dhahaa ii sheeg governmentkii iyo local governmentkina waxay culays saarayaan exchange-yadii waagii hore jiray oo badanaa maxaa la dhahaa owner ahaan haddii la fiiriyo oo Chinese ay ka dambeeyaan kuwaasaa la riixayaa kuwii localka ahaa kuwii Mareykanka ahaa kuwaasaa lasoo dhaweysanayaa la rabaa in meeshaas laga duulo okay let's go waxaan kale idin hayo aan raba wiiga hadda lasoo dhaafay
aan isha ku dhuftay. Okay, sidaa ogtihiin waxaa dhammaaday quartal 2. Quartal 2 dadka aqoonin sanadku wuxuu u qaybsan yahay 4 quartal. Quartal 1 waa bisha 1 ilaa bisha 3. Quartal 2 waa bisha 4 ilaa bisha 6. sidaasay u soconaysa ilaa bisha 12aad. Marka 3 bilba markii la xiro waa xisaabtan baa la gelaya wadamadan hadda aan ku noolaanay. Soomaaliya xataa waa laga yaabaa inay sameeyaan. Marka quartal waaye. Marka hadda waxaa dhammaaday quartal 2. Quartal 2 aa dhammaaday, quartal 1 kaan gelaynaa. Waxaa la xisaabayaa faa'iidadii iyo khasaaradii iyo wixii soo galay iyo ama maxaa la dhahaa ii sheeg tax ha ahaato ama maxaa la dhahaa faa'iido ama khasaaro. Waxaa la xisaabayaa wixii ku soo galay ama kaa baxay kwartaalkii haddana bacday. Marka maanta hadda quartal 1 aan ku jirnaa, marka 10keedii waaye. Marka quartal 2 waxaa lasoo sheegayaa in minerska BTC Bitcoin mineradeeda ay maxaa la profit sameeyeen maxaa la kwartaalkan hadda lasoo dhaafay. Waa 3 bilood hadda lasoo dhaafay lacag qiyaasteeda 184 milyan maxaa la dhahaa from transaction fee. Waxayna ka badan tahay 3daas bil waxay ka badan tahay 2022 all quartals all the years 2022 ay ka badan tahay lacagta ay sameeyeen minerada fiiga. Marka waxaa sababay waxyaalaha sabab waxaa ka mid ah sida qoraalka ku qoran in BTC dhaqaaq fiican uu sameeyey iyo maxaa la dhahaa ii sheeg arrintaa ku saabsan BRC20 maxaa la dhahaa networkiga oo maxaa la dhahaa coin badan lagu dhisayay. Taas xataa waxay sababtay in mineradii lacag fiican transactionadii la sameynayay ay ka sameeyeen. Marka waxaad u malaysaa in maxaa la dhahaa 3 bilood hadda lasoo dhaafay BTC dhaqdhaqaaq fiican iyo lacag fiican laga sameynayo meel walbo, ama miner ha ahaado ama maxaa la dhahaa ii sheeg investor ha ahaado ama trader ha ahaado. Kolley qof walba lugtiisa meesha ugu jirto wax buu ka sameynayay 3 bil hadda lasoo dhaafay. Taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha aan isha ku dhuftay wiiga hadda lasoo dhaafay. Horaan u soconaynaa. Arrimaha aadka yacni loo hadal hayay isbuucan hadda lasoo dhaafay waxaa ka mid ah Binance sidaa ogtihiin waddanka Holland, Belgium, Germany waddamadaas waxa waaye albaabada laisku dhuftay. Marka waxay samaysay Binance exchange local ah Coinmercy la dhahayo relationship la samaysay. Marka Binance reer Holland oo aniga aan ka mid ahay warqadii waxay u soo dirtay emailada noo soo dirtay ee leedahay si yacni bishaan haddarta markay dhammaato waxaa ugu dambeysa Binance inay ka shaqeyso ama xataa wax withdraw ama deposit ku samayn kartid ma lahan. Sidaa darteeda waxay ishaarteen in ay la shaqeyn la sameeyeen maxaa la dhahaa Coinmercy. Aad koonyadaada mise kriptadaada kuugu jirto Binance aad ku wareejin kartid Coinmercy ayadoo aan fee lagaa qaadinin. Marka waxaad u malaysaa Binance inay wada shaqeyn sameynayso. Coinmercy wuxuu ka mid ahaa exchange-yada aadka u yar Holland ku yaalo. Haddana wuxuu noqday exchange-ga ugu weyn ee Holland. Waa habeen iyo maalin. Marka mar walba riyow riyadaasna shaqo ku dar ayadaa albaabka guusha ayadaa hal mar albaabka soo qaraacaysa. Marka Coinmercy hadda wuxuu ka mid yahay number 1 cryptocurrency dadka Holland jooga. Haddaa reer Holland tahay waxaan ku dhihi lahaa oo xiiseynaysid cryptocurrency still ah xiise kugu hayso isdiiwaan geli. Waan fiiriyey Coinmercy waa fiican yahay ilaa 300 coin baa ku jirto. Marka fiigiisana waa yaryahay. Marka insha Allah iska fiiri.
laakiin si walbo Binance wax gaaro lama hayo. Mar horaan sheegay Twitterkan waa dhexdaas soo diray sawir qorax dhacayso. Qofkii xasuustee ayadoo arrintan dhan buuqa dhan la furin ee Yurub. Laakiin waxaan dhahay Binance maxaa la dhahay ii sheeg way qorax dhacday camal ma fahamtay. Marka Maraykanna waa laga soo xiray, Yurubiyaankana hadda waxa waaye waa laga xirxiraya albaabada. Badanna way kusoo socdaan. Marka aan isla aragno insha Allah Binance waxyaalaha kale kusoo socdo la socdo. Okay, newskan wuxuu ka soo baxay Denmark sida ogtihiin waxaa jooga ustaadkeena Denmark hay-ad la yiraahdo FSA waa hay-ad ku saabsan dhaqaalaha iyo magaciisii alaabta exchange-yada waxay ku amartay bangigani Saxo Bank in uu joojiyo ama uu ka saaro maxaa la dhahaa assetka uu trade ku sameeyo. By the way, Saxo Bank waa bangi 92 la asaasay. Waana bangi u qaabilsan trading forex-kiga haddaad maqashiin stock market-ka waa bangi ku caanbaxay trading ma fahantay. Marka waxaa la dhahay saaxib cryptocurrency illegal waaye ka saar maxaa la dhahaa platformkaaga ka saar ama ka baabi'i ayaa la dhahay. Marka orderkaasi mise digniintaas loo diray Saxo Bank aniga meel waxaan u malaynayaa inay ku xigto Binance ayadana in jaalo mise guduudkii la siiyo jaalo mar hore jaalo jireen hadda jaalo ma jiro wax la dhaho jaale guduud roose banaanka. Marka waxaan u malaynayaa Denmark ustaadkeenina waxa waaye ma jeclo su-aasha arrimahan inaan ka hadlo. Kolley haddii Netherland laga soo xiray Binance, Germany laga soo xiray, Belgium laga xiray, marka Denmarkna way ku xigeysaa. Haddana waxay ku bilowday waa bisha 5teeda newskan hadda bisha 5teeda waa Jumcadan u malaynaya. Bisha 5teeda goormay ahayd? Bisha 5teeda bisha 6teeda ma aqaan wax saas camal u malaynaya. Marka calaa kulli xaal haddaan hadalka soo gabagabeeyo Denmark waxaa u malaysaa inay hadda soo jeesatay ayadana usheeda soo qaadatay cryptocurrency ee bilowday. Waxaana waa dhabarka daawasho Yurubiyaanka way isla ogyihiin maalin walba waddan baa albaabka furaayo xiraayo. Marka sidii CoinMercy oo loo ogolaaday in la isdiiwaangeliyo sida hadda aniga waa markaan isdiiwaangelinayo CoinMercy sida fudeedka ah toos bangigayga aan lacag ku shubi karaa CoinMercy si toos ah ayadoo jahwareer. Binance-na waagii ay cusbeed Binance sidaas ahaan jirtay kabacdi waxaa lagu adkeeyey bangiyada lagu adkeeyey waxay noqotay inaan Soomaaliya inaan ka soo dirsado oo fee badan la isaarto laakiin hadda si toos ah lacagtaydan ku gadan karaa bangiga. Marka local exchange-yada localka waa loo fududeynayaa inay trade ku sameeyaan laakiin exchange-yada weynaa ee laga shakinayo in Chinese-ka gadaal ka riixayo albaabada loo xiraayo. Marka waan arkaynaa Denmark ayadana go-aankeeda ku saabsan Binance weli ma arkin laakiin waan filaya mar dhow in arrintaasi ayadana ay soo baxayso. Waa ka xumay. Horaan socon. Okay, wargelintaana ka soo khatimayna barnaamijkeena waxaan u malaynayaa in uu waqti badan nagu qaatay maantay. Marka wargelintan bisha 5teeda bisha hadda aan ku jirno 5teeda bay soo baxday. Marka waxay ka hadlayeen waa Binance oo wargelinayso in multi-chain bridge tokens deposit iyo withdrawgeeda ay joojisay.
marka kooninkaana ka mid ah multi-chain bridge kooninkani ka mid ah polka start uu ka mid yahay marka sababtu waan fahmi waay waxayna dhaqan gelaysaa bisha toddobadeeda waa saddex beri ka hor bay dhaqan gelaysaa in arrintaa la joojiyo mana la sheegin waqtiga la furi doono arrin maxaa la dhahaa deposit iyo withdrawga kooninkani multi-chain tokens marka sababtan fiiriyey waxaa meeshan ku xusan bal linkiga raacsa si ogaatay sababta marka sababta markaa aadid multi-chain naftigiisa twitterkooda waxay twitterkan soo dhigeen bishii shanaad 24teeda dhibaataa ka haysatay maxaa la dhahaa systemkooda marka qoraalkan ay soo qoreen well most of the cross chain routes of multi-chain protocol are function well some of the cross chain routes are unavailable due to the force measure and the time for the service to resume is unknown marka waxay dhaheen maxaa la dhahaa multi-chain inkastoo maxaa la dhahaa inta ugu badan uu shaqaynayo networkiga multi-chain laakiin qaar baa qalqal ka jiro qalqalkaasna inta la sameynayo waxay qaadanaysaa waqti laakiin waqtigaasa xataa ma ogin waxay dhahaan dadka arrintani dhaawac ka soo gaarana waxa waaye waan u celinayna marka waxaan galay lacagtooda loo celinaya mise waxaa la siinaya magdhow aa la siinaya sida soomaalida ay dhahdo marka waa fiiriyey waxaa isbedelay may ilaa haddirtaan marka may ilaa haddirtaan waxaa isbedelay twitterkan waa bishan toddobada bishan hadda aan ku jirno bisha toddobadeeda laba twitter bay soo saareen inta waxay soo qoreen multi-chain ii sheeg lacagtii ku jirta multi-chain the lock up asset on the multi-chain MBC address have been moved to unknown address up normally. The team is not sure what happened and is currently investigations. It is recommended that all users suspend the use of multi-chain service. bal hadda ay soo qorayaan ma fahamti markii Binance 5 beri ka hor markii Binance aaday waa joojinay in and out multi-chain waxeeda la isticmaalo hadda waxay leeyihiin lacagtii meel kale lagu wareejiyey ay ku jirto multi-chain mana la yaqaano sababta marka dhibaataa ka taagan multi-chain iyo multi-chainyadii marka we don't know kolley waxaad aragteen barnaamijka maantay news aad u qurux badan news waxa waaye qalbiga ku xanuujinayo wayna fiican tahay meesha meel walba inaad wax ka fiirisid marka waxa waaye waxaan ii rajeynayaa trade aad u qurux badan suuqa waa shidan yahay hala shaqaysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu